عديه دبيي سومالان كارهان بلها بلشدا وحا هايستي qoraal uu bartiisa Facebook soo dhigay gudoomiyaha kooxda xidigaha geeska Maxamed Axmed Bakaal oo ciro ku magac dheer arintaas oo la xidhiidhay in Somaliland lagu cusuriyay ama laga sheegtay hadaba in fanaanka hadda ayaa la joognaa in bal arintaas nooga war Badri Koosar wad mahadsan tahay horta Badriyo hawshaas way jirtay weerarkaas uu jiray habeen hore ayaan ahayd waana wax cad aniyo walaalkay Abdirxaan Adiid baan wada soconay taana ku cadeynaya yaad u malaynaysaa in arintaasi ka dambayso wallahi horta ummadda lama xagto waxaan jirna lama sheego Badriyo cid aan ku oranayo cidaas waxa ka dambeysay horta ma jirto laakiin weerarkaas uu jiray dabeedna dadku eriya cadifadaysan bay ku hadlayeen imika ma jirto cid aan oranayo cidaas weerarkaas samaysay oo cidaas ay ahaayeen Somaliland sidaad ogtahay fawda ma aha nidaam baa ka jira waad ogtahay ma jirtaa hay'adaha ammaanka ma u gudbiseen arintiina Badro walgu horta hawsha waa lagu gudo jiraa dawladana baalasay aan waxa la yarto fanka siyaasadda laga daayo fankii siyaasadda meel mooda galaan nagu faan baanahay erigaasaan oran lahaa fanka iyo siyaasadda hala kala saaro waxa jira dad badan oo adiga ku taageersan oo si weyn qaarkood cad ka mujireen baraha bulshada qolo kale si kala u dhigaysay fariinta bulshada ku taageersan ee Somaliland aad u diraysaa maxay tahay waxaan aad iyo aad u mahadsantihiin ani Hargeysa waa magaaladeedii waana magaaladan ku dhashay ku dhaqmay ku koray waa dalkaygii hooyo waxaan leeyahay aad baan idinku mahad celinayaa meel kasta oo joogtaan aad baan idinku mahad celinayaa mar labaad iyo mar saddexaad bulshada reer Somaliland geestiisa fanaan Cabdiraxmaan Aydiid Oday oo isna halkaasi ka hadlay waxa uu sii adkeeyay hadalka gudoomiyihiisa sida oo kalena waxa uu u mahadnaqay bulshada sida weyn u taageertay Badri wad maadsan tahay gudoomiyuhu uu sheegay wixii dhacay iyo sida uu dhaceen annaga wada soconay faafahinteedina uu sheegay Maxamed waana lagu daba jiraa waxaan u mahad celinayaa dhammaan ummadda meel kasta oo dunida joogan arintan ka ficil celisay haddii af noqoto haddii ficil noqoto iyo haddii baraha bulshada noqotoba aad baan u mahadsanyiin waxaan ku darayaa oo kale in fanka iyo la kala saaro siyaasadda oo fanka la siyaasadeynin fanka iyo siyaasaddu isma geeyaan mana iskalaan aad baan u mahadsantiin dhamaantiin arintaasina insha Allah bidnillaahi kariim waxay noqon doontaa arin dadka reer Somaliland ay wax badan macnaha ay kaga tusaale qaataan